horta waxaan arkay sanadkii markuu ahaa 2018 ciyaal iska baashaalayo oo ku baashaalayo jiirkaanka dhahayana waan qaadi karaa ilaa halkaa waan geey karaa aniga waa imaaday waa iska baashaalaya dhalinyar baa iska hay waxaan idhi marka aniga ilkayga ku qaadi karo waxaan ilkaha ku qaadi karaa waa yeesay macnaha waa imaaday ilkiya ayaan ku qaaday markaas ilkaha ku qaaday waa ila fududaaday marka koro ila kaxay koro caag waa la istaagay waan jiljilay wax xanuuna kama dareemayo wax culays kama dareemayo aniga naftirkayga ayaa isku yaabay inta sadadka ila yaabin koro guriga ayaan tagay xoogaa ayaa isla cajabo su'aalooyin ayaan isweydiiyey waxaan is dhahay dadka idil ayaa sameey karo dadkii ayaan iri bada asxaabaan challenge ku xujeystay waa u keenay waxaan iri bal isku daya sameey way sameey waayeen markii dadka oo idil sameey waayeen markaas waxaan ogaaday in aan aniga oo kaliya ay gaartay hibadan sidaas ayaan ku ogaaday in aan hibad leeyahay okay marka dadku maxay dhaha markay arka adigoo maaragtay ilkaaga ku qaadayo 20 leh maxay yiraahdeen horta dadka way kala aragti duwan yihiin dad baa waxay ku leeyihiin sixroolo baa tahay dad baa waxay ku leeyihiin maasha Allah hibad baa leedahay ilaa awood ku munaastay waxa waaye waa kugu dhiirigelinayna hore u soco dad baa ku dhahayo inta badan qaar waxa waaye Soomaalidu waxay badan isha dad ku haleesho waxay tahay isma dhahan maasha Allah erayga maasha Allah waxa waaye qiimo ayuu leeyahay qofka awoodiisa wuxuu ka xijaabaa isha ayuu ka xijaabaa maasha Allah kuma dhahayaan qofkan waxay ku leeyahay waaw awood ayuu leeyahay lagu hore laga socona qaar marka qaaraba ku caynaya oo ka xun waayo dadka Soomaalida waxba isku ma ogolo qaar baa ka xun oo ku dhahayaan sixroolo baa tahay waxa nagala kortay marka dadku sidaas ay u aragti duwan yihiin waana ku qanacsanahay waa in dadka kala aragti duwanadaan aniga wax faa'iido ay uma jirto dadka aragtidooda wax faa'iido ay uma jirto waayo qofka waxaan aniga ka qiimeeyaa qaabka uu fahmo waayo fahamka waxa lagu qiimeeyaa waa aqliga qofka sidoo ku fahmo ayaan lagu qiimeeyaa oo lagu qaataa arinta bajaajka ka wada tirkeeda goorma aydan aad tijaabis markaan su'aalooyin badan isweydiiyey tan aan soo bandhigay waxaan yiri marka maxaa kala taqaana su'aalooyin ay isweydiiyey ilaan qofku marka uu wax isku arko oo kiis ku nafsadiisa ku arko su'aalooyin ay isweydiinaya su'aalooyinkan isweydiiyey marka waxaan is dhahay maxaa kala sameyn kartaa marka waxaan tijaabiyey bajaajkan aan tijaabiyey bajaajkan iyada naftigeeda waa jiiday waliba xataa si fudud ayaa u jiiday ila fududaatay waxaa jira qof walba jiidi karo oo waxa way talaalaxaya sida hadda qof walba oo arka barnaamijkan oo arko wuxuu ku leeyahay waa talaalaxiisa meel waxay saarnay talaalaxa lagu saaray foolo waay ay ku leeyihiin foolada naftirkeeda meeqa lagu riixa marka ay meel ku istaagto meeqa lagu riixa 3 ilaa 4 lagu riixa dadaa waxay ku leeyahay iga riixaan saacad u kale caawi ila riix ay ku leeyihiin marka haddii aan anigoo kaliya ilkayga aan ku jiiday ilka waa dareemi kartaa ilka waa daciif haddii aan ilkayga ku jiiday waa dareemi kartaa marka xaaladda ay gaarsiisan tahay ilkayga ayaan ku jiiday sida asxaabta oo korjoogtada ka baroobayeen qaar baa sameey waayay marka waxaan yiri markay awoodis inay gaar tahay ogaadaan waxaan jeclaystay inaan soo bandhigo sidaas ayaan ku soo bandhigay okay dadku dhiirigeliye ma jiraan aad u weyn dad badan ay dhiirigeliyo waan dadka jecel asxaabteyda anina waa jecelahay waan u mahad celinayaa waxaan jecelahay awooddan barnaamijyaadkani caalamku ka jirta hadda American Got Talent waxa ka soo qayb galo dad badan oo wadamo kala duwan ka socda ayaa ka soo qayb galo dadkaasina waa dad la soo dhiirigeliyay dadkoodii ama wadankoodina uu soo dhiirigeliyay juhdina uu ku soo bixiyay anina sidaas oo kale waxaan jecelahay wadankayga inuu garabkayga istaago dadkii garabkayga istaagaan si aan awood ugu yeesho inaan ka qayb galo tartamadaas abaalmarin ku qaato okay waxyaabo kale oo aad rajeynayso inaad ku soo darto ama aad tijaabo ku wada hadda ma jirtaa si aad maaragtay mustaqbalka u soo bandhigto waa jirtaa maxaa kamid hadda waxaa jirto barnaamij aan tijaabiyey wilina aan soo bandhigin oo hadda ay tahay baabuurka loo yaqaan karoolaha baabuurka karoolaha waa baroobay horena waa u dhahay hadda koor markaan sameynayay waxaan iri waxaan awoodeeda inay gaarsiisanaato ilaa heer baabuur aan ilkay ku jiidi karo baabuurka naftirkiisa waan baroobay waana jiiday waana soo bandhigi doonaa insha Allah marka process waxay ku jirtaa processka aan soo bandhigitaanka ku jirtaa marka muddo dhow rajeynay insha Allah muddo dhow rajeynay inaan dadka soo bandhigo waana iga sugaysan insha Allah marka baaqad u diraysa bulshada maxay tahay horta bulshada waxaan leeyahay qof walba oo hami leh amba hiigsi leh inay garab istaagaan waa inaysan dhaliilin amba ay hoos u dhigin qofka walaalkaaga waxaa la rabaa hamiga uu leeyahay xataa yuusan ku qancin adiga yuusan ku qancin waxaa la rabaa kaliya inaad qofka dareensiiso inaad lagu wada qanacsan yahay laguna faraxsan yahay si uu asina ugu dhiirado inuu hore u sii socdo
haddana waxaa rabaa aniga inaan sameeyo barnaamij hadda waxaa kusoo kordhiyey waxaan samaystay youtube ayaa samaystay youtube-kaas waxaa ku qoran Ibrahim Xigmad waxaan rajeynayaa inaad soo booqan doontaan oo aad igu dhiirigelin doontaan in barnaamijkan aan si hore usii wado youtube-kaas aan samaystay Ibrahim Xigmad aa ku qoran soomaalida waxaan ka rajeynaya hadda barnaamijyada artist aan kusoo bandhiga hadda artist oo nashqada ani aan sameeyey maskaxdayda ka sameeyey oo ka aliftay ayaa kusoo bandhiga waxaan rabaa barnaamijka hadda aan sameey rabana inaan kusoo kordhiyo ayaan rabaa oo soo dhigo halkaas igala socdaan